الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم maantay oo ahayd maalintii shanaad kadib macmalka ahayd oo lagu badbaadinayay hantida saaran iyo doonta oo hadda aan arkaan inta ii jirto oo aqyaasku isleeyahay waxay hadda ii jirtaa 18 ilaa 17 mitir waan isleenahay insha allahu tacaala markaa waa meeshii ugu dambaysay niyaddeedu waxay ahayd inaanu maanta konteenarada dhigno oo dekadda aan dhammaystirno laakiin waxaan nagu dhacay meesha oo mool ahayd oo runtii moolku aad u dheeraa iyo afka dekadda oo aanu ballaarinay ayaa waxay keentay inaanu maanta xoogaa 16 mitir aanu dhammayn kari weyno insha allahu tacaala waxaanu isleenahay berrito haddii alla idmo ilaa gelinka dambe baanu tiidii xiri doonaa runtii cilmi baan baranayoo badda lama saadaalin karo maxaa yeele moolku inta uu la eg yahay annagoo runtii isticmaalayna teknolojiya aad u fara badan buusaayaan isticmaalayna kaamirooyin badda ilaa 60 mitir lala buusaayo isticmaalayna experts badan haysana haddana bad lama malayn karo laakiin saadaashu waa guul ducadiinaan u baahannahay ilaahay gargaarkiisaan rabnaa noo duceeya insha allahu tacaala hantidii waa inoo badbaadi doontaa saadaashuna waa guul aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi